muddooyinkii u dambeeyay waxaa magaalada Boorame ee caasimadda gobolka Awdal soo tarayay goob ganacsiyeedyo cusub kuwaas oo kor u qaadaya horumarka iyo bilicda degmada Boorame marba ka dambaysa ay ku sii tallaabsanayso ayaa waxa uu maanta gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali xariga ka jaray hotel cusub oo lagu magacaabo La Stella Restaurant and Cafe madasha xariga jarka meheradani cusub ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin tiro badan oo ka mid ahaayeen gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorame wasiiro hore iyo sharaf lagu maamuusay xafladani ayaa waxa ugu horeen halkaasi ka hadashay Sahre Xamuud Jibriil oo ah mulkiilaha hotelkani cusub iyadoona sheegtay in lagu iibin doono meheradani noocyada kala duwan ee cunooyinka iyo cabitaanada isla markaasina ay diyaar u yihiin shaqaale aqoon iyo khibrad u leh adeegyada ay bixinayso meheradani waxaan leeyahay ku soo dhawaada cafeteriadan caalamiga ah oo ay joogaan shaqaale idin jajaban agab wanaagsan iyo wax clean oo nadiif ah ayaan ku soo dhaweynaynaa mahadnaqayaa oo igu qaaliya walaalahay meel kasta ay joogaan Maxamed Jibriil inta kadib waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay duqa degmada Boorame Saleeban Xasan Xaddi wasiir hore Cali Xamuud Jibriil gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali iyagoona soo dhaweeyay meherad ganacsiyeedkani cusub ayaa waxay yiraahdeen waxaan halkan uga mahadnaqayaa ganacsatada halkan hotelkan maanta La Stella Cafe ka furay waxaan leenahay Ilaahay ha barakeeyo waxaan leenahay waa meel runtii bilicdeeda fadhigeeda iyo sida loo qaabeeyay ay tahay mid soo jiidanaysa dadka runtii ayaa restaurant weyn La Stella laga furay magaalada Boorame oo xafladiisii furitaanka ahayd ayaanu maanta isku wada nimidnay waxaan leenahay waa hotel casri ah oo nidaam cusub leh oo wax leh waa fooq weyn oo xagga sarana jaamacadda ee gali doonto oo jaamacadda loo dhisay iyo restaurantkeedii hoosta oo mid casriyeysana horta marka hore waynu baarigaynaa Sahre Xamuud Jibriil cafeteriahan xagga sarana jaamacadda ee Iilo waxaanu leenahay kii lagu baraaro ee laga macaasho Allah ka dhigo ee leenahay marka hore marlabaadka Sahre wax weyn baa soo kordhisay oo ku soo kordhisay gobolka ama magaalada Boorame runtii waxa maanta noo sharafa inaan xariga jarka hotelkan cusub ee maanta la furay oo ay bishu tahay 15 bishii 2019 ama 2019 aan ka soo qayb galno sharaf bay noo tahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waa maalgelin ballaaran baan leenahay dalkooda u horeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waan ugu ducaynaynaa insha Allah bismillaahir kariim ilaahay inuu ku barwaaqaysiyo ugu dambeyn waxa uu halkaasi gudoomiyaha gobolka Awdal si rasmi ah xariga uga jaray hotelkani cusub ee La Stella Restaurant and Cafe waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorame.